haweenweynaha ururka qaranka ee NAW ayaa maanta shirkiraad ku qabtay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal kadib markii ay ku taageerayeen xil kordhinta uu sameysay golaha guurtidu xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyagoo ku taageeray sheegayna in golaha guurtidu xilkii loo igmaday ay ka soo baxeen iyagoo arrimahaasi ka hadleen waxa ay carabaabeen anagoo maanta hambalyeynayna golaha guurtida waxqabada dalka u sareysa hadalka ay tiraaho oo laga daba noqonayn kuna hambalyeynayna maanta guurtidu muddo kordhintii ay shalay toolo magacaabeen inay sanad iyo 10 bilood lagu biiriyo xukuumadda aad baan ugu taageersanahay waxaan leenahay hambalyo maanta waxaan hambalyeynaynaa muddo kordhintii ay ku dhawaaqday golaha guurtidu iyadoo uu qalmo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo sanad iyo 10 bilood wax ka badan 10 sano uu qalmo in loo kordhiyo waayo waxa la og yahay wax qabadkiisa iyo sida uu dalka wax inoogu qabtay hadii ay wax inoo kordhoon loo kordhiyo madaxweynaha waxa la xaqiiqsay dad shacabka reer Soomaaliya xaqiiqsan yihiin inuu madaxweynuhu wax qabad ballaaran sameyn doono anaga oo taageerayna muddo kordhintii ay sameeyeen golaha guurtidu maalintii shalay ay u kordhiyeen madaxweynaha waxaan leenahay hambalyo una ahaantii golaheena guurtidu وهي samafalka ee Soomaaliland dhanka kale waxa su'aasha muhiimka ah dhax wareegaysa dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal xil kordhinta loo sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee ah sanadka iyo 10 bilood marka uu dhamaato ma qaban doona doorasho xaq iyo xalaal ah mise waxa uu raadin doona xil kordhin dambe waa Shucayb Maxamed Kaahin telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Boorama